وقيبتني بوغا New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Comprehension and phrases. وفهمك iyo dulucda kooban. Comprehension and phrases. وفهمك iyo dulucda kooban. Passage 26 sheekadii 16aad. Answer ka jawaab these questions su'aalooyinkani not more than ana ka badnayn 70 words 70 eray. Does the writer qoraagu study art miyuu bartaa or does he study music mise wuxuu bartaa music? Does he paint ma wuxuu rinjiyeeyaa a lot of pictures sawirro badan or not? An ayaa joining word meesha noogu jirto. Do many people dad badan really understand dhab ahaantii ma fahmaan modern art shaxanka casriga or not mise ma fahmaan? Do paintings rinjiyooyinka waxyaabaha la rinjiyey paintings waxyaabihii la rinjiyey rinjiga la mariyey always had iyo jeer have a meaning micno miyay leeyihiin or not mise ma laha? Are they sometimes ma marka qaar ama waqtiyada qaar pretty patterns ma tusaalooyin qurux badan oo lasoo koobiyaya or not mise ma aha? Do young children caruurta yaryari appreciate ma fahmaan modern paintings paintiyada casriga ah better than si ka fiican others kuwa kale or not mise ma fahmaan? Do they notice more wax badan ma ogaadaan or not mise ma ogaadaan? Not only but ayaa joining word meesha noogu jira. When did the writer's young sister goorma ayaa qoraagu walaashiisa yar go into ay gashay into his room qolkiisa? Did she examine ma imtixaantay his new picture sawirkiisa cusub or not mise ma aysan imtixaamin? An ayaa joining word noogu jiro. Had he hang it upside down miyuu u suray ama ugu dhejiyey derbigii? Or had he hang it mise wuxuu ugu dhejiyey the right way up sida saxda ahayd? Did she notice ma ogaatay this tani immediately isla markii or not mise maysa ogaanin? An ayaa joining word no ah. waxaan nidhi passage 26 waa sheekadii 26aad comprehension and phrases ayaanu ka qaadanaynaa fahanka iyo dulucda kooban. Answer ka jawaab these questions su'aalooyinkani not more than aanan ka badnayn 70 words 70 eray. Does the writer qoraagu study art miyuu bartaa or does he study music mise wuxuu bartaa music? Does he paint ma rinjiyeeyaa a lot of pictures sawirro badan or not mise ma rinjiyeeyo? And do many people dad badan really understand ma fahmaan dhab ahaantii modern art shaxanka casriga or not mise ma fahmaan? Do paintings always had iyo jeer have a meaning miyuu leeyahay micno or not mise ma laha? Are they sometimes waqtiyada qaar ama marmarka qaar pretty patterns miya tusaale qurux badan or not mise ma aha? Do young children caruurta yari appreciate ma fahmaan modern paintings paintiyada casriga better than si ka fiican others kuwa kale or not mise ma fahmaan? Do they notice more in badan miyay gartaan ama fahmaan or not ogaadaan? Not only but. When did the writer's young sister goorma ayaa qoraagu walaashiisa yar go into his room ay gashay qolkiisa? Go into his room qolkiisa gashay. Did she examine ma waxay imtixaantay his new picture sawirkiisa cusub or not mise meesha imtixaamin? Had he hang it upside down ma wuxuu ugu dhejiyey ama u suray derbiga si kala rogan ama kala gidsan oo kala wareegsan? Or had he hang it the right way up sida saxda ayuu suray? Did she notice this ma ogaatay tani immediately isla markii or not mise ma ogaanin? Thanks. ألف لا كردبي ألف لا سلبي ألف لا قذي